sharaf bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladdan lagu soo gabagabaynayo hawshii muddada 6 bilood oo socotay ee isugu jirtay training-ka ama tababarka iyo mentoring-ka ama hagitaanka iyo ugu dambeynna ku soo dhamaatay in la soo kala xulo oo 10kii ugu dambeeyay halkan isugu yimaadaan si loo abaalmariyo ciddii mutaysatay abaalmarinta dabeetana ay socodka iyo mashwaarka ay bilaabeen halkaa ka sii wadan hayaankooda ganacsi ee ku dhisan tiknoolajiyadda dabcan Innovate Ventures iyo Telesom mudday ka soo wada shaqeynay mashruucan laga soo bilaabo 2016 oo si toos ah Telesom iyo Innovate Ventures mashruucan ugu noqday partners haddaynu siyaasad ahaan wali raadinayna ictiraaf waxaan isleeyahay in marxad ka wada nahay in Soomaaliland tiknoolajiyadda ay meel hore kaga jirto aad looga ictiraafsan yahay waxa uu dambeysay sanadkii ugu dambeeyay 2018 bishii November markii shirka weyn ee Africacom ee shirkadaha tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta Afrika oo dhan isugu yimaadaan kuwa dawladdu ay marxad ka yihiin in kaalinta koowaad ay ka gashay Telesom oo ka socotay Soomaaliland loona aqoonsaday inay tahay shirkadii ugu saameynta badneyd horumarka tiknoolajiyadda Afrika sanadkii 2018 macna gaar ah oo sameynaysa ma aha guul ay Telesom kaliya leedahay waa guul qof kasta oo muwaadin Soomaaliland ah uu ku faali karo oo horumarka tiknoolajiyadda ee dhalinyarada Soomaaliland ay sameysay waxyaalaha keenay in horumarka tiknoolajiyadda la sameeyana ma ahayn wax cidi noo soo waariday ama meel kale nooga yimid waxa hal abuuray dhalinyaro dalka wax ku baratay aqoontoodii ka shaqeeyay horumariyay dabadeedna kalsooni nafeed keenay waayo ibnaadiga qof 9 bilood ka badan ku dhashay ma jiro qof samada looga soo dajiyo loo soo waxyoodaana ma jiro tiknoolajiyadda laakiin waxay ku xidhan tahay qofku talentkiisa iyo maskaxdiisa iyo hibada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay inuu u bedelo shaqo oo wax ka soo saaro taas waxay keentay marka dhalinyaradeena markay talentkoodii iyo hibada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay u bedeleen wax waaqic oo lagu shaqeyn karo in dunida la tartami karaan anaga Telesom ahaan waxa markasta naga go'an in la horumariyo wacyiga tiknoolajiyadda dhalinyaradeena si ay u noqdaan qaar la tartama dhalinyarada dunida ee tiknoolajiyadda ka faa'iideysa ayna noqon tiknoolajiyaduna wax aan waqtiga leenaga qaadin oo waqtiga inaga lumin oo qofka dhalinyarada waqtigiisa oo dhan waxa macno u sameeyeen uu ku bixiyo laakiin ay noqoto inuu noqdo wax production iyo wax soo saar leh qofkuna wax ka soo saari karo tartan uu ku gali karo waa waqtigiin dhalinyarada maanta dunida ugu taajirsan oo ku jiro Mark Zuckerberg ka Facebook gali waa dhalinyarada dhamaanteen isaga inuu xidhanna 9 bilood ku dhashay jaamacado badan kama bixin shakhsiyad gaar ah leeyahay ma jirto laakiin wuxuu isku dayay inuu ka faa'iideeyo maskaxdiisa iyo maankiisa oo uu mataqaana marka u bedelo tiknoolajiyadda heer ganacsi marka qaar badan ay naga mid yihiin taa wax ka wanaagsan sameeyaan waynu awoodna haddaynu nafteena ku kalsoonaano anagu waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno oo la shaqeyno oo baritaarno oo dabada ka riixino cid kasta oo hawsha ay mataqaana diyaar ah ama talentkeeda iyo hibadeeda soo bandhigtaba mashruucan accelerator programka isaga waan garab taaganahay waan garab taagnaan doonaa insha Allah waxa ugu badan inaan ka qabanano waxa financial support inaan u sameeyno oo maalgelin lacageed siino mashruuca qaybteeda maadaama aanu partnerka ugu weyn ee Soomaaliland nahay aanu muddo ka soo shaqeynayay laakiin macnaheedu ma aha in dhalinyarada tiknoolajiyadda iyo halabuurkeeda leh mashruucan oo kaliya ku koobanay cid kasta oo halabuur tiknoolajiyad la timaada waxaan diyaar u nahay garab qabano waxaan diyaar u nahay inaan u furno aan u furnayno in systemyada yada ku soo xirmi karo oo tiknoolajiyadiisa kaga shaqeysan karo API waxa la yiraahdo aan u furi karno oo noqon doono hab marka dunida kula xiriiro haday tahay payment gateway aan leenahay Zaad iyo waxa la midka haday leedahay Dar es Salaam Bank iyo bangiga iyagoo maalgelinta ula diyaara iyo haday tahay adeegyada tiknoolajiyadda kale leenahayba waxaan diyaar u nahay garab istaagno cid kasta oo isku dayaysa in hore u socoto oo dunida tiknoolajiyadda kula tartanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.